Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daada. Maxaad ka taqaanaa taariikhdii Camaara, haweeney geesinimadeeda iyo xirfadeeda dagaal ay la yaabeen asxaabtii nebiga iyo weliba nebiga sallallahu calayhi wasallam. Magaceeda wuxuu ahaa Nusayba bintu Kacab ibn Camru ibn Cawf ibn Manduul, laakiin waxay ku magac dheereed oo loo yaqaanay Camaara. Waxay ahayd saxaabiyad reer Ansaar ah, sidoo kalena waxay walaalo ahaayeen laba saxaabi oo waaweyn oo lagu kala magacaabo Cabdullaahi ibn Kacab iyo Cabdiraxmaan ibn Kacab. Camaara radiyallahu canha waxay ka mid ahayd labadii habeen ee keliya ee ka soo qayb galeen baycadii ama heshiiskii labaad ee Caqaba uu nebigu sallallahu calayhi wasallam saxaabada la galay. Camaara waxay wacdaro weyn ka dhigtay dagaalkii Uxud. Markii saxaabada dagaalka galeen ayaa Camaara iyo ninkeeda Qusayya iyo labadeeda wiil hareeraha ka mareen oo isku soo wareejiyeen nebiga sallallahu calayhi wasallam si ay gaashaan ugu noqdaan. Saxaabadii waxay la yaabeen xirfadda ay Camaara u leedahay ku dagaalanka seefta. Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay, markii aan ku jirnay dagaalkii Uxud, dhan kastoo eegaba waxaa iga xigtay Camaara oo dagaalamayso si ay ii difaacdo. Camaara ayadoo goobtii dagaalka joogto oo ay dagaalamayso ayaa 13 dhaawac oo waaweyn soo gaareen. Mid ka mid ahna wuxuu ku qaatay 1 sano inay ka soo kabato. Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu Camaara iyo qoyskeeda ugu duceeyey inay jannada rafiiq ama saaxiib kula noqdaan. Geeridii nebiga sallallahu calayhi wasallam kadib, markii uu xilka qabtay Abubakar as-Siddiiq, ayaa Camaara oo da'deedu 60 sano jir kor u dhaaftay ka qayb gashay dagaalkii lala galay Musaylama al-Kaddaab. Camaara dagaalkaas mid ka mid ah gacmaheeda ayay ku weyday oo gacanta ayaa laga jaray, laakiin geesinimadeeda meesha kuma istaagin. Way sii dagaalantay ilaa markii dambe Musaylama laga dilay oo sidaas dagaalka ku dhammaaday. Waxaana dilay wiilkeeda Cabdullaahi ibn Yaziid. Camaara dagaalyahanad keliya ma ahayn, waxay kaloo baratay Qur'aanka iyo xadiiska. Sidoo kalena waxay macallimad u noqotay haweenkii Madiina deganaa. Nusayba bintu Kacab ama Camaara radiyallahu canha waxay ahayd geesiyad diinta islaamka u soo halgantay. Markii geeriyootayna waxaa lagu aasay xabaalaha Baqi ee magaalada Madiina. Daawade, muuqaalkan haddaad ka heshay like saar, subscribe iyo share-na ha ka ilaabin. Wassalaamu calaykum.